kulan wacan saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararkeena waxa ugu waaweyn Hirshabeelle oo dib u dhigtay doorashada kuraasta taalla magaalada Beledweyne xilli xiisad dagaal ay ka taagan tahay magaaladaasi doorashadii ugu adkayd ee golaha shacabka oo xalay ka dhacday magaalada Gaalkacyo iyo guuldaro weyn oo soo gaartay xildhibaan Ubax Tahliil Warsame qodobada kale ee wararkeena waxa kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo magaalada Nairobi u tagay la kulanka wakiilo ka socda dal taageeraya ololihiisa iyo ra'iisul wasaare Roble oo la kulmay guddiga qiimeynta doorashada magaalada Garbaharey qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan faahfaahin doonaa waa Isniin taariikhda ay ku beegan tahay 7 Maarso sanadka 2022 haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-keena kadibna fura gambaleelka sidoo kale like saar muuqaalka si ay dad badan u daawadaan u diyaar garoow faahfaahinta wararkaasi markale kulanti wanaagsan waxaan ku bilaabayaa guddiga doorashada Hirshabeelle ee Siid ayaa dib u dhigay doorashada 11 kursi oo taalla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulka Hirshabeelle jadwalka kuraastan ayaa la shaaciyay 2 bishan waxaana qorshe u ahaa in doorashadooda la qabto 8 iyo 9 bishan aynu ku jirno ee March guddiga Siid ee Hirshabeelle ayaa sababta dib loogu dhigay doorashada kuraastaasi ku sheegay arrimo farsamo dartooda wuxuuna guddigu shaaciyay inay dib ka soo sheegi doonaan waqtiga rasmiga ah ee la qaban doono doorashada kuraastaasi kuraasta oo ay qaarkood ku tartami doonaan siyaasiyiin saameyn leh ayaa waxay kala yihiin Hob Ewer 4 Hob Ewer 10 Hob Ewer 11 Hob Ewer 9 Hob Ewer 30 Hob Ewer 39 Hob Ewer 58 Hob Ewer 59 Hob Ewer 63 Hob Ewer 66 iyo Hob 135 si kastaba dib u dhacan ku yimid doorashadani waxay ku soo aaday iyadoo culays xoogan haatan laga dareemayo Beledweyne oo ay ku sugan yihiin inta badan murashaxiinta xildoonka ah iyada oo habeen horena maleeshiyad gadoosan ay galeen magaaladaasi madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Gudlaawe Xuseen iyo ku-xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah murashaxiinta u tartamaysa kuraasta taalla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan musharaxiinta kulanka ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Goodax Barre wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdirisaaq Cumar Maxamed wasiirkii hore ee amniga agaasimihii hore ee Nisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambololshe xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi iyo mas'uuliyiin kale dhammaan murashaxiintan ayaa la wadaagay hogaankii Hirshabeelle cabasho ay ka qabaan doorashada ka socota Beledweyne iyaga oo sheegay in musharaxiin gaara loo xiray kuraasta Cali Gudlaawe oo madasha ka hadlay ayaa ku dhawaaqay in tartanka uu noqon doono mid furan wuxuuna tilmaamay in kuraasta harsan si siman ay markaasi ugu bartami doonaan musharaxiinta sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in aysan jirin cid gaar ah oo ay wadato Hirshabeelle sidaas daraadeedna wuxuu ka dalbaday murashaxiinta inay ilaaliyaan xasiloonida amniga kulanka ayaa daba socda dhaqdhaqaaq ciidan oo laga dareemay Beledweyne kadib markii ay soo galeen ciidamo taabacsan qaar ka mid ah musharaxiinta cabanaysa Hirshabeelle ayaa horay Jowhar iyo Beledweyne uga qabatay doorasho natiijadeeda la sii og yahay kadib markii xubno gaara loo xiray kuraasta taalla maamulkaasi waayahay qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan markana Gaalkacyo haddaan eegno waxaa magaalada Gaalkacyo xalay saqdhexe lagu doortay kursiga Hob Ewer 60 kaasi oo 8 sano ee la soo dhaafay ay ku fadhisay Ubax Tahliil Warsame waxaana xalay ku guuleysatay xildhibaan Qaali Cali Shire kursigan oo doorashadiisu ay ka dhacday Gaalkacyo tartankiisu wuxuu ahaa mid furan waxaana ku loolamay 4 musharax oo dhammaantooda haween ah maadaama loo asteeyay qoonda haween doorashada kursigan ayaa la isla aaday wareeg labaad oo ay isugu soo hareen Ubax Tahliil Warsame oo wareegii koobaad heshay 44 cod iyo Qaali Cali Shire oo wareegii koobaad heshay 32 cod markii ay soo dhamaatay codeynta wareega labaad waxa ku guuleysatay Qaali Cali Shire oo heshay 61 cod halka Ubax Tahliil ay heshay 40 cod murashaxiinta kale ah Ubax Tahliil Warsame Qaali Cali Shire Hodan Shire iyo Wacan Xaaji ayaa ku loolamayay Ubax Tahliil Warsame waxay 5 sano ee la soo dhaafay kamid ahayd xildhibaanada sida aadka ah aan u cabsan ee taageersanaa madaxweyne Farmaajo hase yeeshee taageeradaasi ayay xalay ku weysay kursigaasi sida
mucaaradka ama dadka markaasi kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo ay qabaan, ayadoo ergadii codeysay ay u muujiyeen in qof waxqabadkiisa keliya uu ahaa inay taageersaneed farmaajo aanayna dib u dooranayn. doorashada kursigan ayaa saacado dib u dhacday kadib markii ay isbahaysi ku dhawaaqeen Ubax Taaliil, taasoo keentay in Ubax Taaliil ay diido ka qaybgalka doorashadaasi. dib u dhac saacado kadib waxaa Ubax Taaliil lagu qanciyay inay hoolka doorashada soo gasho, waxaana sidaasi salaadii cishaa kadib ku bilaabatay doorashada kursigaasi laga leeyahay koonfurta Gaalkacyo oo loolan adag wajahay. codeynta ayaa ahayd mid qarsoon oo ergadu ay sanduuq codkooda ku ridayeen, waxaana ugu dambeyntii kursiga Hoob Eber 60 ku guuleysatay xildhibaan Qaali Cali Shire. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ahna musharax madaxweyne ayaa u duulay magaalada Nairobi habeena ka hor, waxaana halkaasi la sheegay inuu kula shiri doono wakiilo ka socda dowladda isu taga Imaaraadka Carabta. Sheekh Shariif madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa la sheegay inuu xiriir wanaagsan la leeyahay Imaaraadka, waxaana shirkooda uu la xiriira arrimo ku saabsan doorashada Soomaaliya oo bilaa soo socda la filayo in lagu doorto gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha. xog aan helnay ayaa sheegaysa in wakiilada ka socda Imaaraadka ay Sheekh Shariif kala hadli doonaan qorshaha ugu wanaagsan ee looga guuleysan karo kooxda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna ku sugan dalka Qatar. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dooqa koowaad ka dhigtay inay taageerto musharax madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, halka dooqa labaad uu ku jiro madaxweynaha Puntland oo isna xiriir dhow la leh Imaaraadka. Kenya iyo madaxweynaheeda Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabta ku cadaadinaya inay taageero buuxisiyaan Sheekh Shariif oo ay u arkaan qofka kaliya ee jabin kara damac madaxweyne Farmaajo ee inuu mar kale soo laabto. waxaa la ogsoon yahay in magaalada Nairobi ay tahay xarunta iyo ololaha Imaaraadka Carabta ee arrimaha Soomaaliya looga hadlo, kuna sugan yahay safiirkooda Soomaaliya u fadhiyay. sidoo kale waxaa ku sugan Nairobi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka 11aad kuwaas oo deegaan doorashadoodu ahayd Jubbaland iyo Puntland. Sheekh Shariif ayaa doorashadii 2016 kala kulmay niyad jab, isaga oo taageeradiisa ay aad uga hooseysay intii la filayay, waxaana ugu wacnayd dhaqaale xumo haysay oo uu ku iibsan waayay codadka xildhibaanada, waxaana la filayaa inay boosaskaasi u buuxiyaan Imaaraadka. waayahay ugu dambeyn haddaan eegno, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay guddiga uu u xil saaray qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharey. ra'iisul wasaaraha ayaa xubnaha guddiga ka dhageystay warbixin ku saabsan socdaalkoodii Kismaayo iyo qorshaha safarka guddigu ku tagayaan Garbaharey si ay wada tashiyo ula soo yeeshaan qaybaha kala duwan ee bulshada. guddiga ayaa maalin ka hor Muqdisho ku soo laabtay kadib safar maalmo qaatay oo ay ku tageen magaalada Kismaayo, halkaasi oo ay kula kulmeen madaxweynaha Jubbaland, ku-xigeenkiisa koobaad, siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda Gedo. waxay sheegeen xubnaha guddigaasi in xog aruurin ay ka soo sameeyeen Kismaayo, iyagoo maalmaha soo socda ku wajahan magaalada Garbaharey si rabitaanka bulshada magaaladaasi ugu kuurgalaan. sidoo kale reer Garbaharey waxay sheegeen in wax aan ahayn guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo xalinta khilaafaadka aysan u ogolaan doonin inay tagaan degmada Garbaharey, iyagoo ra'iisul wasaare Rooble ugu baaqay in doorashada kuraasta Garbaharey uusan ku eedoobin. wararkaasi ayaa Soomaaliya xilligan ugu waaweynaa ee nabadgelyo.